cashirkeena maanta insha Allah cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay English vocabularies English new words af Somali eraya cusub marka waa sidaan caadad ahayd waxaan go'aansanay inaan soo diyaarin cashirkan maanta aan isku daynaa inaan English Somali translation ku sameyno waan garanay mind waa maskax mind waa erayga magaca ah ee maskaxda la yiraahdo maskaxda migration tahriib ay noqonaysaa migration waa dadka ka taga dalka u dhasheen wadan kale u haajira waa garanay midnight waa saqda dhexe ee habeenimo mid saqda dhexe 6 saac wixii ka dambeeya ee habeenimo kala bara habeenka la waxa la yiraahdaa midnight middle waa dhexda salaano kale shay kastaba wuxuu leeyahay dhax waa dhaxda dhaxdhaxaad ama meesha dhaxda ah mental waxaan dhahaynaa maskaxiyan tusaale halkan waxaan nidhi mind oo maskaxa halka kalena waxaan dhahnay mentally maxay ku kala duwan yihiin marka mind waa maskax waa erayga magaca ee maskax eraygana mental waxa weeye maskaxiyan qofka maskaxiyan ay dhibaato u gaadhay qofka hadii dhibaatooyin badan la kulmo xanuun baa ku dhacay maskaxiyana kaasaan ka wadnaa marka memory waa xasuusta xasuus ayay noqonaysaa xasuus miles xasidnimo waa qof ay kana ka soo boodnay maximum ugu badnaan maximum waxa ka soo horjeeda minimum waa garanay miles waxa weeye xasidnimo waliba cuqdad ku jirto cudur ku jiro tusaale qof baa qof cuqdad u qaba go'aan wuxuu ku gaaray qofka inuu ka araguto muusan iska cafinin go'aankiisu laakiin waxa weeye inuu ka araguto ama dhibaato u geysto maxaa dhii miles membership xubinnimada maxay noqonaysaa urur baad xubin ka tahay xisbi baad xubin ka tahay guddi baad xubin ka tahay waa membership xubinnimo mechanical is a person who have a technical education or technical practical for making in a mechanical issues waa qofka mechaniga waa wada naqaanayna af Soomaali mechanic waa qofka farsamo ahaan wax u yaqaan sida birta gaarido kale adiga metal farsamo yaqaan qofkani waa mechanic hebel guri dhiso ama engineering aato ama mechanical engineering aato ama metal engineering aato waxay doonayaan noqoto meat waa hilib xoolaha la qalo hilibkooda meesha cabir tusaale ninka fundiga guriga dhisayo wuxuu wataa cabir wuxuu yaqaanaa darbigaas ilaa darbiga inta darbiga afarta darbi inta cabirayeen inta dhagax galaysa everything is in that man so we say a measure cabir saadonta u qaadado we know in Somali something called cabir mean time inta lagu guda jiro tusaale if somebody say mean time in the meeting we conclude for 2 hours later ama wuxuu ku dhahay mean time in the meeting we cannot discuss about another issues inta lagu guda jiro shirka wax kale kama hadli karo tusaale inta lagu guda jiro anything waa xiriiriya fiican waan garanay meanwhile dhanka kale ama sidoo kale our meeting was discussed for job creation meanwhile an education empowerment for example someone might say meanwhile our meeting was concerning an education empowerment meanwhile for job creation salaano kale qof hadlay wuxuu dhahay shirka yagu wuxuu ku saabsanaa in la kobciyo aqoonta dhalinyarada sidoo kale ama dhanka kale waxaa kamid ahaa in shaqo abuur loo sameeyo salaano kale meanwhile dhanka kale ama sidoo kale waa garanay
meya inagu ereygan waan isticmaalnaa isagoo sidiisa laakiin waxaan dhahnaa meeyarka aartaasaa muujinaa meeyar waa duqa magaalada ama guddoomiyaha magaalada waan garannay maybe waxaa laga yaabaa waxaan ku dhahay somebody may say or may ask you a question saying that my friend when will you come back maybe 2 hours later when will you come back maybe 2 hours later goorma ayaad soo laabanaysaa 2 saacadood kadib waxaa laga yaabaa 2 saacadood kadib waa garani majua qaangaaray waa qof ama noolaha dhanba way qaangaaraan shay xawayaan ama noole qaangaaray dadkan tusaale u qaadanayna qofka at the age of 7 years and 15 years is a mature in Islamic law but other people say that 18 years but as a Muslim we say that an 18 years is the maturity of a person 18 sano ayay dhahaan dadka hadda western country oo ka reer galbeedka laakiin shariga islaamka 15 sano qofka haduu gaaro waa qaangaad waa garanay qaangaad maxay tahay waa da'da uu kaga baxo qofku ciyaalnimada maata arrin ama marxalad soo korodhay arrin ama marxalad massive ballaaran a massive flood has occurred in the city a massive flood has occurred in the city tusaalahan qof wuxuu ku dhahay fatahaado ama daadad aad u ballaaran ayaa ka dhacay magaalada massive wax ballaaran massacre waay ereygan massacre genocide ayaa la mid iyadana massacre waa xasuuq ummad ama noole si aan sharciga waafaqsanayn loo xasuuqay bay noqonaysaa marka insha Allah intaasaan ku daynaynaa aad baan idin salaamayaa waqti waa idin wacnaada insha Allah hadii la haydo aad baan idin salaamayaa meel kastoo joogtaan iyo xilli kastoo joogtaan salaamu calaykum.